waxaa muddooyinkii u dambeeyay degmada Sheekh iyo deegaanada hoos yimaada si xoog looga dareemaya diyaargarowga doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Somaliland ee la filayo inay 31 May 2021 ay guud ahaan dalka ka qabsoomaan. sidoo kale maalinta berri waxaa la filayaa in ay bilaabmaan ololaha loogu diyaargaroobayo doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee 31 May 2021 la filayo inay dalka ka qabsoonto. haddaba degmada Sheekh oo si xoog looga dareemayo diyaargarowga doorashada waxay indhahaagu qabanayaan boodharka gaadiidka iyo xafiisyada ay ku xardhan yihiin murashaxiinta ka tartamaya saddexda xisbi qaran ee kulmiye wadani iyo cid una tartamaya golayaasha deegaanka iyo wakiilada iyo sidoo kale astaanta u gaarka ah murashaxiinta ee loogu codeynayo. xubno ku hadlaya afka murashaxiinta saddexda xisbi qaran ee degmada Sheekh ayaa ka warbixiyay sida looga diyaar garoobay degmada Sheekh iyo deegaanada hoos yimaada. waxaan baa loogu diyaar garoobay dadku way wacyi gashay maxay leeyahay deegaamada ay degmada xukunto iyo degmada Sheekh kuliyaheeda aad baa looga dareemay diyaar garowga doorashooyinka inkastoo ay nagu cusubtay doorashadan isku sidkan taageerayaasheeda waxaan u sheegayaa laba waraaqood baa lagu dhiibayaa labada waraaqood labadii musharax ee dooleysay ayaa calaamadinaysa sanduuqa aad ku hubsanaysa. degmada Sheekh waa degmo aad u facweyn waa laga dareemayay dhowrkii bilood u dambeeyay diyaar garowga doorashada iyo sida loogu bislaaday in dadku ay doorasho u dareeraan. doorashada diyaar garowgeedu waa mid tuulo iyo waxa weeyaan qariyad iyo magaalada dhexdeedaba toos looga dareemayo inaynu ilaalino nabadgelyada xasiloonida la shaqeyno ciidanka nabadgelyada si doorashadu ay noogu dhacdo mid nabad ah ay noogu dhacdo weyn la ilaaliyaa oo lala shaqeeyaa ciidanka. aad baan ugu diyaar garownay ololaha degmada iyo doorashada isku sidkani inay si nabadgelyo ay noogu dhacdo lagana wada shaqeeyo wixii waxa weeyaan dhibaato ku keenaya si nidaam ah oo dimuqraadiyad leh oo qurux badan oo wanaagsan maanta mustaqbalkeena waa ku xidhan inaynu u ilaashano waxaan Somaliland faraya oo aan gaarsiinaya oo aan leeyahay war doorashadaasi nabadgelyo oo xor iyo xalaal ah aynu uga wada qayb qaadano. qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Sheekh ayaa iyaguna sidoo kale soo dhaweeyay doorashada isku sidkan ee la filayo in 31 May 2021 ka qabsoonto dalka. sidoo kalena ugu baaqay bulshada ku dhaqan Somaliland in la ilaaliyo nabadgelyada meelna looga soo wada jeedo. waxaanu baaq u diraynaa bulshooyinka Somaliland ee dacalada Somaliland meel kasta ha joogaan ee ku codayn doona tartan xor iyo xalaal ah. waxa aanu doonaynaa inay inoogu dhacdo si nabadgelyo ah oo ammaanka waafaqsan oo sharciga iyo dastuurka inoo yaala waafaqsan. leeyahay in xisbiga Bariitolowle iyo labada xisbiye ku xigaba si bilaa turxaana oo bilaa caqdada oo bilaa carqalada aynu qayb qaadano mid walba maalinteeda maalinta uu leedahay iyo xusitaankeeda inagoo ilaalinna jiritaanka Somaliland meelna uga soo jeesanaa amnigeena iyo ummadeena. waxaanu leenahay inaynu nabadgeliyo iyo walaalnimo iyo wanaag ku dhamaysano amniga aynu ilaashano aynu ilaalino dawladeena qarankeena ilaalino annagoo ku hadlayna afka haweenka degmada Sheekh haddii ilaahay yiraahdo alla nala qabto waxaanu tilmaamaynaa doorashada isku sidkan ee labada musharaxiisa saarana in si xor iyo xalaal loogu codeeyo oo khilaaf iyo cay iyo aflagaado intuba naga hadhan yihiin. degmada Sheekh waxaanu baaq dheer u diraynaa nabadgelyada inay ilaaliyaan xusbi waliba maalintiisa sharaf iyo is lagu tartamo. taliyaha booliska degmada Sheekh Barre Xuseen Maxamed ayaa isaguna geestiisa ka warbixiyay xaaladda nabadgelyo ee degmada Sheekh iyo deegaanada hoos yimaada. ayaan u diyaar garownay waa diyaar baan u nahay inaanu doorashooyinka qayb weyn oo nabadgelyadu ku jirto aanu ka qaadano. waxaan kala farayaa musharaxiinta degmada Sheekh u sharaxan iyo kuwa kale baa ku leh xafiisyada inay nabadgelyada ayaguna sidaas leeg u ilaaliyaan. maayirka degmada Sheekh Ibraahim Cabdullaahi Cabsiya ayaa isaguna geestiisa ka xog warramay sida looga diyaar garoobay guud ahaan degmada Sheekh iyo deegaanada hoos yimaada. axsaabta oo runtii diyaar u ah in xisbi waliba uu musharaxiintiisa
ama ha ahaadaan golaha deegaanka ama kuwa baarlamaanka ha ahaadaane gacanta ku hayo asluubtooda ilaaliyo allahuma salli calaa maxamed wixii ay u baayihiinna uu xisbigu la qabanayo oo ay diyaar u yihiin baad moodaa guud ahaan saddexda xisbiba ma baqano sheekhu ma baqano nabadgelyada markay tahay siiba xilliyada doorashada alxamdulillahi rabbilcaalamiin ilaahay si wacan oo qurux badan buu noogu dhameeyaa noogula bilaabantaa sanadkanna sidiisii hore si la mida ayuun baanu rajaynaynaa faysal aadan ismaaciil telefishinka qaranka somalilan degmada sheekh